qurbajoog u dhalatay gobolka Jarar ayaa booqasho ku soo maray mashaariicda horumarineed ee sanadihii ugu dambeeyay laga hirgeliyay magaalada Dhagaxbuur iyo degmada Gunagado ka tirsan gobolka Jarar. warbixin arrintan ku saabsan faafahinteeda waxaynu eegay wariye Farax Bade. kadib markii la soo gabagabeeyay shirweynihii qurbajoogta dawladda deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya uga socda magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxay qurbajoogta bilaabeen socdaal ay ku soo marayaan horumarka kala duwan ee ka socda guud ahaan deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya. haddaba qurbajoogta dawladda deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya gobolka Jarar ayaa socdaal ay ku indhaynayaan horumarka ka socda gobolka Jarar ku soo maray magaalada Dhagaxbuur iyo degmada Gunagada. waxaana qurbajoogta ugu horreyn socdaalkooda ay ku arkayaan mashaariicaha horumarineed ka bilaabeen magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar iyagoo dhammaan indhahooda ku soo arkay mashaariicaha ay ka mid ka yihiin mashruuca weyn ee dhalinta quwadda korontada oo gobolka Jarar oo dhan u qaybinaya korontada, dhismaha kulliyadda farsamada gacanta, adeeg bixinta hospitaalka weyn ee magaalada Dhagaxbuur iyo sidoo kale dhismaha dugsiga sare ee magaalada Dhagaxbuur oo si casri ah loo dhisayo. indhaydhayn kadib ayaa waxay qurbajoogtu aad ula dhaceen horumarka baaxadda leh ee ka hana qaaday magaalada Dhagaxbuur. waxaan joogaa iskuulka dugsiga sare ee magaalada Dhagaxbuur. ma sha Allah maanta shucuurtayda aad ayay u sareysaa. waxa weeyaan waxaan soo aragnay waxyaalo badan oo horumar ah oo wadanka laga sameeyay sida korontada, iskuulada iyo maxaan ku dhahdaa iyo kuliyadaha. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. macnaha ma ka hadli karnaba maanta shucuurtayda meesha marayso. hambalyo idin leeyahay, hambalyo dadaalkiina halka ka sii wada. annaguna hadaan qurba joognahay waxaan sameeynaa insha Allah wixii nagu haboon. booqashada wallahi meelo badan mashruucyo badan baan la soo mariyay sida warshada korontada, technical school, secondary school, meelo badan sida maaragtay magaalada Dhagaxbuur kaliya gudaheeda ah baan la soo mariyay ilaa 5 mashruuc baan magaalada Dhagaxbuur kaliya aan ku soo aragnay. koonahana ilaa 6 iyo 5 waan soo aragnay. marka meelaha maaragtay waraabka beeraha oo kale biyo xidheennada waxaas oo dhan baan soo aragnay. dawladdanada waxaan leenahay guuleysta waan idin garab taaganahay. annaguna insha Allah dhinaciinaanu joognaa. dugsiga sare ee hor taaganahay ee laga dhisay xaafadda afraad. iskuul kale waan soo aragnay oo weyn ma sha Allah. kula jiif farsamada gacanta waan soo aragnay. biyo xidheennaanu soo aragnay. dawladdu aad bay wax u qabatay. indhaheen ayaan ku aragnaa wax qabadka wax la qarin karo ma ah. waa bariye sacaba lagu ma qarin karo. waxa weeye maanta waxaan dhex soconnaa Jarar sida ay u dhantahay waanu soo maraynaa meelaha imika aanu soo marnay dugsiyadii sare aanu soo marnay oo imika kanaan hor taaganahay oo mid kale oo halka ka socday isaguna dhismihiisa waxaanu soo marnay oo kale xaruntii elektriga iftiiminaysay Jarar oo dhan ma sha Allah. kadib ayaa waxay qurbajoogtu aan baxaan dhinaca degmada Gunagada ee gobolka Jarar waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay qabalaha Bulaale ee degmada Gunagada iyagoo qurbajoogtu booqday ceelka caanka ah ee qabalaha Bulaale. kadib ayaa waxay u dhaafeen qurbajoogtu dhinaca degmada Gunagada oo iyaduna maamulka degmada iyo bulshada ay kaga hor yimaadeen koonaha magaalada iyagoo calaamo qoyan u ruxaya qurbajoogta isla markaana ku faraxsan imaatinka qurbajoogtu u dhalatay gobolka Jarar. waxayna qurbajoogtu ugu horreyn booqdeen warshada biyaha macaaneysa ee ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya ka hirgelisay degmada Gunagada ee gobolka Jarar iyagoo aad u dhacay markaa kan biyo kharaadho oo loo sameeyay warshadu macaaneysa bulshada ku dhaqan degmada Gunagada. wax walba waa itus oo itaabsi waanan aragnay. wax walba oo itus oo itaabsi mashaariic aan laga sheekayn karin baanu soo aragnay. ilaahay guula ka gaarsiiyo xisbigeena dimuqraadiga shacbiga Soomaaliyeed. guul meel walba marnana waxaan la kulmanaa meel walba farxadda kale ay ka sii badan tahay ayaanu la kulannaa. aad iyo aad aan ugu faraxnay. waxay dawladdeeda DDS ay noo samaysay meel kastoon tagnay wax la sheegi kara ma waa waxaan indhahayaga ku soo aragnay. maanta anagoo joogna meesha biyaha lagu kala nadiifinayo oo cabna biyihii dhanaana oo haddana cabna biyihii macaana waxaan leenahay dawladdeeda aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. waxaa sidoo kale qurbajoogtu ay boodeen dhammaan mashaariicaha horumarineed ee laga fuliyey sanadihii ugu dambeeyay degmada Gunagada ee gobolka Jarar kuwaasoo ay ka mid yihiin dugsiyada waxbarashada, xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale biyo xidheenka sanadkan laga fuliyey degmada Gunagada ee gobolka Jarar. qurbajoog ka soo jeeda gobolka Jarar oo socdaal ku maraya degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkaasi Jarar ayaa sidoo kale waxa ay booqdeen biyo xidheenka degmada Yoocale ee gobolkaasi Jarar. wariye Farax Bade ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya. qurbajoogtu u dhalatay gobolka Jarar oo socdaal ku gaala bixinaya degmooyinka gobolka Jarar ayaa gaadhay degmada Yoocale ee gobolka Jarar halkaasoo bulshada iyo maamulka degmada Yoocale ay si diiran oo ayna u kala harin ugu soo dhaweeyeen ciyaar dhaqameedyo ay ugu muujinayaan qurbajoogta kalgacalka iyo xiisaha ay u qabaan. waxayna bulshadu kaga hor yimaadeen qurbajoogta iyagoo caleemo qoyan u ruxaya koonaha degmada Yoocale. soo dhaweyn kadib ayaa waxay qurbajoogtu booqdeen mashruuca biyo xidheenka ee sanadka 2018 laga fuliyay degmada Yoocale ee gobolka Jarar waxaana sharaxaad uga bixiyay qurbajoogta ujeedooyinka loo dhisay mashruucan gudoomiyaha degmada Yoocale. dhaamkan waxa lagu talagalay markii ugu horeysay laba ujeedo ama dhismihiisa hore base ku ah labada ujeedo
in waraabna loo isticmaalo cabidna loo isticmaalo siiba xoolaha nool maadaama aagan yahay dadka ku dhaqanayiin xoolo dhaqato in xooluhu ay ka cabaan beerahana daraasaadkii la sameeyay waxa loogu talagalay halkan inay beero badan runtii ay ka baxaan haddaba intay qurbo joogta ku guda jireen booqashadooda aanu wareysi la yeelan ayaa waxay sheegeen in mashruucan uu yahay mid aad u farxad geliya isla markaana uu yahay mid bulshada ka qabtiraya baahida dhinaca biyaha iyo waraabka beeraha dhaamka Yoocaale oo aad iyo aad u ballaaran una biyo badan hadda waxaan ogaanay oon hubsannay oon indhaheena ku aragnay inay tahay biyaha koowaad labaad saddexaad afraad iyo shanaad aan gaarsiinay maadaama oo meel kasta oon dad ugu tagnay aan arkayna ama ceel ama dhaam aad iyo aad aan ugu faraxsannahay qurbo joogta u dhalatay gobolka Jarar ayaa sii wadi doona booqashada iyagoo dhammaan soo maraya mashaariicaha horumarineed ee laga fuliyay sanadihii ugu dambeeyay degmooyinka gobolka Jarar qurbo joog u dhalatay gobolka Shabeelle ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Goday faafahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Maxamed Cabdi Wahaab qurbo joog u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Goday mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelle ayaa si meeqaam sare ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Goday ugu soo dhaweeyay qurbo joog u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolka Shabeelle kuwaas oo ka kala yimid wadamada Jarmalka, Denmark, Sweden, Qatar iyo South Africa ahmiyadda imaantooduna ay tahay sidii qurbo joogtu ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka baaxadda leh ee ka hana qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba munaasabad lagu soo dhaweynayay qurbo joogtan ayaa ka qabsoontay hoolka shirarka ee maamulka magaalada Goday waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka magaalada Goday kan gobolka Shabeelle iyo dhalinyarada ku dhaqan magaaladaas Goday waxaana furitaankii munaasabadan lagu soo dhaweynayay qurbo joogta gobolka Shabeelle ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeelle mudane Farxaan Cabdi Maajuun oo sharaxaad dheer ka bixiyay horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka hirgalay gobolka Shabeelle ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay mashaariic waaweyn ka fulisay gobolka Shabeelle sida warshadaha wax soo saarkoodu tayeysan yahay leedka oo 24 saaca biyo xidheenadii oo ay ka faa'iideysteen beeraleyda ku dhaqan gobolka Shabeelle iyo mashaariic kale oo waaweyn oo aan la soo koobi karin maadaama aan joogno gobolkii ugu soo wax soo saar badnaa ee gobolka Shabeelle oo warshadihii laga dhisay kuleedii ay ku yaalaan laamigii aan haysano leedka 24 saaca aan haysana motooradii aan haysana wax maanta inaga maqmi jiro marka haween dhalinyarada iyo odayaasha iyo gabdhaha dhammaan de waxa linooga baahan yahay inaynu muujino ka qaybgalkeeni maxaan ku muujin karnaa dawladda intaas oo dhan qabatay maxaan ugu abaalgudi karnaa waxaan ugu abaalgudi karnaa inagoo beeraheena ku saarna qaar ka mid ah qurbo joogtii la soo dhaweeyay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin horumarkan laga fuliyay deegaanka sidoo kalena tilmaamay in ay ka faa'iideysanayaan fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka runtii oo wax aad iyo aad loogu farxo intan la eg oo maasha Allah dhalinyaro ay soo abaabushay anoo ku hadlayo afka qurbo joogta ama afka ururka dhalinyarada ee reer DDSI waxaan kaloon ku dari lahaa inta insha Allah waxaan idinku imaanay inaan idinla soo aragno anagoo qurbo joogta ah khaasatan aniga oo qurbo joogta dhankeeda haddana ka socdo ururka dhalinyarada reer Shabeelle inaan horumarka iyo nabadgelyada aad haysataan insha Allah idin kalena qayb qaadan doono haddii Allah subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo idinkana aad ayaa idinku meehad celinaya sida wanaagsan loo soo dhaweeyay geesta kale kooxda fanka iyo suugaanta ee maamulka magaalada Goday ayaa munaasabadan ku soo bandhigay heeso dhaantooyin iyo riwaayado ka turjumaya waxqabadka xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya waxayna qurbo joogtani soo kormeeri doonaan dhammaan mashaariicaha horumarineed ee laga hirgeliyay guud ahaanba degmooyinka gobolka Shabeelle qurbo joog u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolka Shabeelle ayaa booqday mashaariicaha horumarineed ee laga wado degmada Beercaane gaar ahaan mashaariicaha dhanka beeraha warbixin arrintan ku saabsan faafahinteeda waxaa inoo eegay wariye Maxamed Cabdi Wahaab qurbo joog u dhalatay deegaanka gaar ahaan gobolka Shabeelle ayaa booqday wax soo saarka tayeysan ee ka soo go'a dalaga beeraha Beercaano ee gobolka Shabeelle waxaana qurbo joogtan si diiran ugu soo dhaweeyay duleedka magaalada Beercaano bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi Beercaano iyaga oo qurbo joogtani bogaadiyeen wax soo saarka tayeysan ee ay degmada Beercaano caanka ku tahay sida wax soo saarka calafka xoolaha ee loo yaqaano
suudaan garaas iyo alfa alfa khaasatan waxay qurba joogtu ay u riyaaqeen bariiska ka soo baxa degmada beercaano waxaana qurba joogtan faahfaahin dheeraad ah ka siiyey barnaamijka dibudejinta ee ka hirgalay degmada beercaano kusimaha gudoomiyaha degmadaasi mudane jamaal cabdi khaliif oo sheegay in agagaarka biyo-xidhanka weyn ee degmada beercaano la dejiyey in ka badan 13,000 oo qoys si ay uga faa'iideystaan dhanka wax soo saarka beeraha. bariiskan beeristiisa ka qayb qaadatay waa dad deegaanka u dhashay aqoon-yahana jooga hadda ilaa iyo haddana inala jooga weeye marka dadka waxaan u sheegaynaa qurbo joogtiina waxaan u sheegaynaa deegaankeenu inuu yahay deegaan dihin ama carsan ah wax aan ka baxaynina aysan jirinin deeftii baa ka baxaysa bariiskii baa ka baxaya sisintii tii caddeed iyo tii madoobeed baa ka baxaya calafkii xoolaha oo aan suudaan garaaska ahayn alfihii baa ka baxaya alfaalfihii asagina waa kana waan tegaynaa marka waxa weeyaan deegaankeenu ku soo dhawaada dhulhoodan aad leedihiin oo aad haysataan calafnimo u diido cuni waaye mooye ciideenu waa hodan qaar ka mid ah qurba joogtan u dhalatay gobolka Shabeelle ayaa iyaguna dhankooda cadeeyay in bariiskan ay ku arkeen beercaano uu yahay bariiskii laga helayay wadamada Denmark iyo Norway oo ay hadda ka hor ku gadan jireen bariiskan $28 markii ay joogeen wadamadii ay ka yimaadeen waana kuwan iyaga oo ka warbixinaya faa'iidooyinka laga helo bariiskan ka soo go'ay degmada beercaano bariiskan hadda aan gacanta ku hayo waa bariiskan Denmark ku gadana 28 karoone waa ilaa iyo $10 waa bariiska la yiraahdo miscaateynaysa ma jirantahay sonkora qabtaa cun bariiska la dhahay halkaan uu nooga baxaa marka waxa ogaanaysaan dhulkeena inuu hadda iyo koow hadda uu curtay marka inaan ka faa'iideysano oo bariiski qaaliga ahaa aan bal Denmark ka iibiyo aniga kan laftirkay aad ayaan ugu faraxsanahay maasha Allah mar haddaan beeri dhex joogno maasha Allah nabadgelyada iyo horumarka iyo nimcada waxaan soo koobi karoon hadal ku sheegi kara ma aha insha Allah qaybtayada ayaan dhiban annakana insha Allah waan u nimid maanta waanad ku mahadsantiin sida wanaagsan oo noo soo dhaweyseen geesta kale madaxa iskaashatada wadani ay soo saarta bariiskan Shialaqe Muxeediin Maxamed Cabdullaahi iyo shaqaalaha iskaashatadan ayaa qurba joogta u iftiimiyay qaabka ay u fasheen beertan iyo faa'iidada ay ka heleen tan iyo muddadii ay ku howlanaayeen dhanka wax soo saarka beeraha iskaashatada wadani ayaa bariiskan beertay wuxuu beeraa ilaa iyo 6 hektar weeyaan bariiskana 6 hektar waan ka shaqaynay dadku wuxuu aaminsanaa inaan la kelin bariiska oo bariiska wadankeenu inuu ku adag yahay waxaan tusaynaa dadka inuu waxa ugu dhibeer yahay wax walba oo niyadaada ka keentana inaad dhamayn karto oo uu bislaanayo haddaba beertan oo ku fadhida dhul ay baaxadiisu ka badan tahay 350 hektar ayaa waxaa beertan ka soo go'ay 12,250 tan oo calafka xoolaha kaasoo hadda ka hor lagu taageeray goobihii ay abaaruhu saameeyeen sida gobolka City anfarta Maxamed Cabdiwahaab iyo STV beeraha beercaano qurba joog ka soo jeeda gobolka Faafan iyo Jarar ayaa booqasho waxay ka bilaabeen degmada Tuluguuleed faahfaahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Calaayaan le qurba joogtan oo ka kala timid wadamada dibadda ayaa waxa ay booqasho ay ku tageen degmada Tuluguuleed ee gobolka Faafan ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qurba joogtan oo hogaaminayeen Cabdiraxmaan Curaagte wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Axmed Xabiib maareeyaha wakaaladda ilaalinta deegaanka iyo tamarta ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana wafdigan qurba joogtii ay markaas si diiran lagu soo dhaweeyay duleedka degmada Tuluguuleed qurba joogtan iyo waliba mas'uuliyiintan oo hogaaminayeen ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay cagacagafyada beeraha lagu qoto iyadoo ay hareeraha markaasi ay ka socdeen boqolaal qof oo markaasi ka mid ah dadka weynaha ku dhaqan degmada Tuluguuleed waxaana qurba joogtan markii dambe loo soo galbiyay xarunta maamulka degmada Tuluguuleed halkaasi oo ay ku qaabileen mas'uuliyiinta degmada Tuluguuleed waxaana warbixin goobtaasi ku siisay Luula Yusuf Roble gudoomiyaha degmada Tuluguuleed oo ka warantay horumarka iyo mashaariicda degmadan ka socda hadaladeedina waxa ka mid ahaa kolley qurba joogta u dhalatay gobolka Faafan iyo gobolka Jarar waqtigooga qaaliga noo soo hortay inayna soo boqoto degmada Tuluguuleed inay maadaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada kolley degmada Tuluguuleed waxay ka kooban tahay 15 center iyo 108 qabale waxa kolley Tuluguuleed waa la ogaayo horay waxay ahayd qabale laakiin hadda waxay noqotay degmo inta degmo noqotay kolley hore markii ku soo biiray 5 sano ee kobaca sida kobaca soo bilaabatay
qurbajoogtan oo kasoo kici timtay qaaradaha ay ka midka yihiin Yurub, Ameerika iyo weliba dalkaasi Kanada ayaa waxa ay boqdeen masaajidka qadiimiga ah ee ku yaala derbiga kaas oo kamid ah aataarta deegaanka Soomaalida Itoobiya uu caanka ku yahay. qurbajoogtan hadaba isugu jirta rag iyo weliba haween ayaa waxa soo jeetay dhismaha masaajidkan. qaar kamid ah qurbajoogta ka soo jeeda gobolada Faafan iyo Jarar ee markaasi boqoshada ku maraysa degmada Tuluguleed ayaanu la sheekaysanay. Maanta waxaan soo booqanay magaalada Tuluguleed gaar ahaan meesha derbiga la yiraahdo. masaajidka waxaan hortaaganahay hadda sida naloo sheegay ama odayaasha halka jooga noo sheegan 616 sano ka hor waxa iga yaabiyay masaajidka sida aan imka ku aragno waxa laga dhisay dhagax waxa geedana ku jiraan 616 sano ka hor masaajidkii la dhisay inuu haddana sidiisii uu wali yahay waxyaabo aad nooga yaabiyay bay kamid tahay. waxa aan mahad gaar ah u jeedinayaa mas'uuliyiintii iyo madaxdii horkacaysay kormeerkan qurbajoogta. marka kale waxa aan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta degmada Tuli ee sida diiran noogu soo dhaweysay iyo shacabkoodaba. annaga waxa ay noo tahay fursado fara badan oo aanu maanta helay imaanshaha aanu nimid deegaankan Tuluguleed gaar ahaan derbiga oo ah meel taariikhi ah oo aataar fara badan ay ku aasan tahay oo historical ah oo deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo guud ahaan Itoobiya shacbigooduba ay ku faani karaan taariikhda fog ee ay iska leedahay meeshan maanta aynu joogno gaar ahaan masaajidkan. waxaa farxadii maanta oo markii ugu horeysay aan waqooyi uga baxo magaalada Jigjiga anoo u dhashay deegaanka oo soo arkay deegaan aad u qurux badan qalbigayga soo jiitay niyadeyda farxad badan galiyay oo aanan malaynayn inuu deegaanku noocaaya. waxaan aad ugu faraxsanahay socdaalkan iyo kormeerka aanu ku marayno gobolkan Faafan aan ka soo bilownay degmada Tuluguleed. waxay noo ahayd maalin taariikhi ah. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqano dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. maanta waxaan soo booqanay degmada Tuli. hadda waxaanu taaganahay masjidka caanka ee ku yaala tuulada la yiraahdo derbiga hoos timaada Tuluguleed. waa taariikh la meeloobaana. haddaba degmadan Tuluguleed ayaa waxay caan ku tahay dhinaca wax soo saarka beeraha waxayna qurbajoogtu ay jeclaysteen inay markaasi daawadaan beeraha iyo qodaalkooda waxayna qurbajoogtina ay booqan doonaan degmooyin ka mid ah gobolada Faafan iyo Jarar. qurbajoogtii socdaalka ku mareysay gobolada Faafan iyo Jarar ayaa socdaal kale ku tagay goobo kala duwan oo ka tirsan gobolka Faafan. warbixin halkan ku saabsan faahfaahinteeda waxa inoo eegay wariye Cali Aadan Calayaan. qurbajoogtan iyo mas'uuliyiintan la socotay ayaa waxay socdaalkooda ay ka bilaabeen dhismaha guryaha laga dhisayo duleedka magaalada Jigjiga kuwaas oo ay qurbajoogtu xiise gaar ah ku reebay waxayna guryahani ay yihiin kuwa si casri ah loo dhisayo. qurbajoogtan uu hogaaminaya Cabdiraxmaan Curaagte ku-xigeenka wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay wehelinayaan maareeyaha wakaaladda ilaalinta deegaanka iyo tamarta Axmed Xabiib iyo waliba gudoomiyaha gobolka Faafan Nuur Xayir Qaasim ayaa waxay qurbajoogtu ay boqdeen biyo waaji oo mid ay ka faa'iideysanayaan dadka xoolo dhaqata beeraleyda ee ku dhaqan deegaankan. biyo xidhaankan ayaa ah mid haddaba soo jiitay indhaha qurbajoogta. qaar ka mid ah qurbajoogta ayaanu la sheekaysanay. waddankan waan ku soo noqnoqdaa waxaan sameeyaa almost sanadkii ama labadii sano mar baan soo noqdaa. maalin walbana waxaan arkaa isbeddel yimid oo aad u fara badan. maanta waxaan ku sugannahay waaji iyo xidheenkii waaji shalay iyo daraad iyo maasha Allah horumarka ballaaran ee yacni deegaanka ka jira si fiican baan gaar ahaan gobolka Faafan aad baan uga helnay maasha Allah. iskama timaada yacni horumarka iyo dadaalkuna kolley maskaxiyan iyo physical dad baa u soo horay dadkan waxaan leenahay hambaliyo. maanta waxaan joognaa waaji aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumarka iyo wanaaga iyo wax wadanka socda. meel kasta oo ilaa shalay soo marnay barwaaqada iyo horumarka ka taagan wadanka aad baan ugu faraxsanahay. waan aragnay haddaan nahay qurbajoogta aad iyo aad baan ugu habinahay. markaasi aanu wax ka weydiino socdaalkoodana booqashadan ay goobahan ku tagayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. waxaan bilownay daraad socdaalkii aan ku soo tusaynay waxqabadka deegaanka qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida
gaar ahaan kuwa gobolka faafan iyo gobolka jarar inaanu soo tusno dhammaan wixii mashaariic ka jira ee dowladda ka qabatay ama iyagu ka qurba joog ahaan ama kuwa dalka joogaba investment wixii iyaguna ay samaysteen marka socdaalkayga marka hore waxaan ka bilownay degmada Tulli waxaan soo maray dhul beereedkii marka ay xukuumaduna ay siisay cagafyo aad u tiro badan cagafyadiina noo soo bandhigeen degmadaasi marka wuxuu socdaalkaygani itusoo taagsi socdaalkan qurba joogta oo ay ku wehelinayeen mas'uuliyiin iyo xubno ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay u gudbeen degmada Qabri Bayax oo si diiran lagu soo dhaweeyay waxayna qurba joog qada sharaf lagu sameeyay taasoo laga sameeyay cunno dhaqameed tuulada Gelo oo ka tirsan degmada Qabri Bayax waxaana halkaasi lagu soo dhaweeyay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka taasoo ay qurba joogtu ay aad uga heleen waxaana shacabka la hadlay oo mahad u celiyay gudoomiyaha gobolka Faafan iyo gudoomiyaha degmada Qabri Bayax sida fiican ee ay u soo dhaweeyeen qurba joogta waxaana sidoo kale ay qurba joogtu ay markaasi booqdeen beerta weyn ee iskaashatada horseed qurba joogtan oo si watay socdaalkooda ayaa waxa ay booqdeen santarka harta sheekha oo markaasi si diiran lagu soo dhaweeyay dadku ay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo waliba calanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo kan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxayna qurba joogtu ay booqdeen mashruuca biyagelinta santarka harta sheekha qurba joogtan iyo mas'uuliyiintii la socotay ayaa waxay dib u soo qaadeen jidka dheer ee isku xidhiga magaalooyinka Qabri Bayax iyo Jigjiga taasoo ay hareeraha ay tubnaayeen shacabka ku dhaqan magaalada Qabri Bayax oo markaasi caleemo qoyan luulayay kuwaas oo soo dhaweynaya masiisago tubiyay qurba joogtan socdaalkan oo haddaba ay qurba joogtu ay ku soo gabagabeeyeen inay markaasi booqdaan mashruuca dhinaca xoolaha qaabilsan mashruuca dhinaca caafimaadka baadhista xoolaha qaabilsan ayay ku soo gabagabeeyeen socdaalkooda iyadoo booqashadu ay noqon doonto mid sii socon doonto ay booqan doonaan goobo kale oo kala duwan qurba joog u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolada Qorraxay iyo Doolo ayaa booqasho ku soo maray garoonka diyaaradaha ee magaalada Qabri Dahar sida warbixintan ku sheegay wariye Maxamed Cabdi Garbo qurba joogtan u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kana soo kala jeeday gobolada Qorraxay iyo Doolo maalmahanba kormeer indhayn shaqo ku soo sameeyay hirgelinta mashaariicaha horumarineed ee ka kala socda gobolada Qorraxay iyo Doolo ayaa gaadhay xarunta gobolka Qorraxay magaalada Qabri Dahar xilligaas oo wafdigan balaaran ee isugu jiray qurba joogta iyo mas'uuliyiinta heer deegaan magaalada Qabri Dahar galeen amin habeenima ayada oo kadib waagu markuu bariyay la booqday mashaariicaha waaweyn ee laga hirgeliyay xarunta gobolka Qorraxay magaalada Qabri Dahar gaar ahaan waxa ka mid ahaa goobaha la booqday mashruuca weyn ee dhawaan la dhameystiray ee airportka caalamiga ah ee magaalada Qabri Dahar halkaasoo wafdigan balaaran ee qurba joogta iyo mas'uuliyiintan heer deegaan heer gobol isugu jirta ay soo indhayndeeyeen qaybaha kala gedisan ee uu ka kooban yahay mashruuca airportka caalamiga ee magaalada Qabri Dahar gudoomiyaha maamulka gobolka Qorraxay mudane Yuusuf Aadan Yuusuf ayaa qurba joogtan uga warbixiyay habka loo hirgeliyay mashruucan airportka caalamiga ee magaalada Qabri Dahar tarban highway-gu waa concrete way ilaa 30 sentimitir iyo techniskiisu yahay dhulka intuu ka kacsan yahay markii ay qiyaaseen maaragtay qolyihii garoomada dalka ilaa baakinka diyaaradaha ilaa 4 diyaaradood baa digi kartay dhaheen oo fadhiisan karto 2 boyna iyo 2 yaryar say u soo dhigeen u sheegeen diyaaradaha marka hadda ugu waaweyn way digi karaan markii ay tayahaan iyo walba ay fiiriyeen
qaar ka mid ah qurba joogtan u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kana soo kala jeeday gobolada Qoraxay iyo Doolo ayaa dhankooda soo dhaweeyay dhamaystirka mashruucan weyn ee riboorka caalamiga ee magaalada Qabri Dahare. Itoobiya oo dhan waa mashaariiceen modelka ugu noqonay ee ayna wali dhicin yani dowlad deegaan gaar ah ama ismaamul kilil mashruuc uu fuliyay oo sidan oo kale wali ma ay dhicin Itoobiyana taa taariikhda rekoorkeenu u galnay marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah airportkii baanu taaganahay aad baan u faraxsanahay ma sha Allah wax laga sheekeyn karo ma aha aad farxadeeda lama qiyaas karo iyo meelihii mashruucyada aan soo marin laba mashruuc oo jawaaji iyo mashruuci kale aad iyo aad baan u faraxsanahay wafdigan ballaaran ee qurba joogtan u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kana soo kala jeeda gobolada Qoraxay iyo Doolo waxaa la filayaa in ay booqan doonaan mashruuca weyn ee Maracato iyo mashaariicaha kale ee ka socda gobolada Qoraxay iyo Doolo.